Halkan waxaan ka bilaabaynaa sheekadii kun habeen iyo habeen oo taxana inoo noqon doonta. Waxaa la yidhi beri hore ayaa waxaa jiri jiray nin boqor ahaa oo dal boqortooyo oo aad u ballaaran xukumi jiray. Waxaa la yidhi xaaskiisa oo boqoradii waddanka ahayd ayaa khiyaamaysay oo dhaqan xun oo xagga gogasha ah samaysay. Boqorkii markii uu arrintaas ogaaday aad iyo aad ayuu uga xumaaday falka ceebta ah ee boqoradiisii ku kacday. Waxa uuna ku xukumay in kurka laga jaro oo la dilo, sidaas ayaana la sameeyey. Boqorkii ayaa la yidhi wuxuu u yeeray wasiirkiisii ugu sarreeyay wasiirada, waxaanu amar ku siiyey in habeen walba gabadh ugub ah oo ka mid ah hablaha ugu quruxda badan waddanka loo keeno si uu u guursado. Sidii ayaa wasiirkii sameeyey amarkii boqorka oo habeenkii uu horreeyey u keenay gabadh ugub ah oo aad iyo aad u qurux badnayd. Boqorkii ayaa habeenkii ugu horreeyey gabadhii la aqalgalay, halkaasoo loogu sameeyey xaflad aroos oo aad loo soo agaasimay oo si heer sare ah looga soo qayb galay. Aroortii markii la waabariistay ee lasoo toosay ayuu amar ku bixiyey in gabadhii aroosadda ahayd kurka laga jaro oo la dilo. Markii wasiiradiisii weydiiyeen sababta uu arrintaas saas u sameynayo oo gabadha uu u dilahayo, ayaa wuxuu ku jawaabay, ma rabo in mar dambe ee qof kale oo dumar i khaa'into, saa daraaddeed waa in la dilo qof kasta oon habeenkii guursado. Sidii ayaa maalintiiba loogu keenay gabadh kale oo ugub ah, aad iyo aadna u qurux badan. Iyadana markuu habeenkii la aqalgalay ayuu amray in aroornimadiiba la dilo oo kurka laga jaro. Markii uu muddo 3 sannadood ah sidaa ku waday oo gabadhii loo keenaba oo la aqalgalaba uu aroortii marka dadka uu waabariisto loo dilayay iyada oo boqorka amarkiisa la fulinhayo, ayaa waxaa dhacday in hablihii waddanku noqdaan wax la dilay, kuwa waalidkood la baxsadeen oo la carareen iyo si u badbaadaan. Maalintii dambe ayuu wasiirkii magaalada caasimadda ah iyo magaalooyinkii ugu dhowaa oo dhanba ka waayay gabadh qurux badan oo leh sifadii lagu amray inuu boqorku ugu geeyo. Haddii uu keeni waayana, boqorku wuxuu kala ballamay in asagu u qoolan yahay oo kurka laga jari doono. Wasiirkii ayaa isaga oo wuxuu sameeyey garan oo aad iyo aad u warwarsan gurigiisii ku soo noqday. Wasiirkii wuxuu dhalay 2 gabdhood oo aad iyo aad u qurux badan oo la kala odhan jiray Sahrasaad iyo Dunyasaad. Waxay ahaayeen 2 hablood oo Ilaahay u dhameeyey adaab iyo qurux, waxaanay ahaayeen hablo aad iyo aad Ilaahay ugu manaystay maskax iyo fahmo badan. Gabadha weyn oo la yiraahdo Sahrasaad ayaa iyadu waxay baratay ama ay ku takhasustay culuumta suugaanta iyo luqadaha, waxayna haysatay sheekooyin aad u badan. Waxaa kaloo intaas u sii dheeraa inay iyada laftigeedu hibo heer sare ah u lahayd curinta sheekooyinka khayaalka ah, tii oo ay curin jirtay sheekooyin aan laga xisogoyn karin. Gabadhii weyneyd ee Sahrasaad ayaa aabbaheed ku tiri, aabbo, maanta maxaa kugu dhacay ood la murugaysan tahay? Markaasuu wasiirkii ku jawaabay inantiisii arrinta jirta iyo waxa uu boqorku ku amray ee uu ka sugahayo iyo sida aan u haynin gabdhaha uu boqorku doonayo, maadaama hablihii noqdeen waxa la dilay iyo wax waalidkood waddanka kala baxsadeen. Waxaa kale oo inantiisii u sheegay inuu ka fikirayo sidii ula baxsan lahaa iyada. Sahrasaad ayaa tidhi, aabbo, arrintaasi ha ka warwarin ee aniga ii gee boqorka, ha ii guursadee. Waxay arrintaasi u raacisay aabbaheed oo tidhi, aabbo, haddii Ilaahay ila qabto, aniga ayaa badbaadin doona hablaha waddanka ee ugubka ah ee uu boqorku dilayo maalin walba. Wasiirkii ayaa inantiisii ku yidhi, aabbo, kuma quuro inaan ku waayo oo qudha lagaa jaro, marka waa inaan sidaa ugu dhaqsaha badan waddanka kaaga saaraa oon kula baxsadaa. Sahrasaad ayaa tidhi, maya aabbo, aniga ii gee boqorka oo ii dhis caawa, aniga ayaa aqaana sidaan uga soo badbaadaye. Sidii ayuu wasiirkii isagoo aad u naxsan Sahrasaadna ugu geeyey boqorkii oo sidii caadada ahayd aroos heer sare ah loogu diyaariyey. Boqorkii ayaa aad iyo aad ugu farxay markuu arkay inantii wasiirka oo ahayd midda ugu quruxda badan dhammaan waddanka.
Saarasaad ayaa markii boqorkii loo sii gudbinayay lasii dardaarantay oo la sii ballantay walaasha Dunyasaad, waxayna ku tidhi, walaal, marka boqorku la ii geeyo, waxaa boqorka ka codsan doonaa in la ii kaa keeno oo aad ii weheliyeesho. Marka waxaad tidhaahdaa, Saarasaadee, habeenku wuu dheer yahaye, sheekooyinkaagii xiisaha badnaa mid inoogu tuur. Sidii ayaa Saarasaad boqorkii loogu geeyey. Markii xafladdii arooska oo aad u bilayd la gabagabeeyey oo boqorkii la horgeeyey, ayay tidhi, boqorkaygii qaaliga ahayow, waxaan kaa codsanayaa inaad ii oggolaato in gabadha iga yar ee aan walaalaha nahay ee Dunyasaad ay ila joogto qasriga boqortooyada si ay iigu weheliyeesho. Boqorkii ayaa markiiba isagoo quruxda Saarasaad la mashquulay codsigeedii u oggolaaday oo u amray in si degdeg ah loogu keeno walaasheed. Markii ay goor cawaysin ah noqotay, ayaa Dunyasaad walaasheed ku tidhi, walaal Saarasaadee, habeenku waa dheer yahay, miyaad sheekooyinkaadii xiisaha lahaa ee macaanaa inugu maaweelisid caawa? Gabadhii Saarasaad ayaa bilowday sheekadii. Markaasuu boqorkii xiise aad iyo aad ah u qaaday sheekooyinka Saarasaad, taasoo uu boqorkii dhaygagay oo dhabanka gacanta saaray macaankii sheekada halaacsiga awgeed, midda ka dambaysa kasii xiiso badnayd, tiyoo boqorku dhanka iyo dhanka midna eegi waayey. Markii waa berigii soo dhowaaday ee sheekadii halkii ugu macaaneed marayso, ee boqorkii uu isleeyahay maxaa sheekadeedu u dhammaan doontaa, ayay Saarasaad tidhi, boqorkaygii qaaliga ahayow, waagii ayaa soo baryaya ee sheekada halkaa haynoo joogto oo aynu seexanno. Boqorkii oo aad iyo aad u xiiseynaya sheekada oo markaa meel fiican maraysa, ayaa halkaa nabadgelyo Saarasaad habeenkii ugu horreeyey ku yidhi. Isagoo xiiseynaya sheekada kusii xigi doonta, ayay seexdeen. Saas ayayna Saarasaad boqorkii ugu sheekaynaysay muddo 1,000 habeen iyo habeen ah. Waxa aad buuggan ku arki doontaa. Haddaba sheekadan halkaas ayay nooga sii socon doontaa.